إلا أحد بالشيكادني معنوي كو كردين كرتا هديات سيفي على درجيسته نكني وين أو لقدريه بالشدي سايو كمدي هي احترامنا والله هي أنت أوحو داري هي بشغلي سو وإن أرتيد يرجر يعربوا مسؤول كي هي مسؤول كسوحي هي لما شيء ما طلول بوكاها ما وحوها أسيستن بورهروها ما معلم بوها وحو طونا بهالنقطة نكني وإن ضد يرجر أو عرور هبلو مسؤول كا hase haatee waqtiyada kamid ah ayuu wuxuu ka sheekeeyay in hablihii yaraa ee mas'uulka ka ahaa inuu qaar kamid ah u farxumeeyay hadaba waqtigu wuxuu socdaba 16 sano kadib hadda waa 16 sano kadib ayaa ninkaasi waxa weeye waqti dambe la xiray waqti dheer buu xidhnaa intii uu xidhnaa buu shaqadii waqtiga dheer uu soo hayay ee lagu ixtiraami jiray laga eriyay deyn fara badan ayaa lagu yeeshay markaas meel wal oo istaagay deyn baa loo haystaa ninkii macal waqtigu wuxuu socdaba wuxuu isu bedelay qof dowrsada ah noloshiisuna haba yaraatay ay taxta sifar tahay ama below zero ay tahay ninkani wuxuu mar walba ku cabaadi jiray oo uu sheegi jiray halka laga raacay inay ahayd 16 sano ka hor waxaanu mar walba oran jiray nacdashii dambigii aan sameeyay 16 sano ka hor ayaa maanta ay haysta kale waa mid kale waa nin dhalinyaro ah waa nin adiga oo kala ah ninkan wuxuu dhigtaa kulliyadda caafimaadka kulliyadaha ugu sareeya una qadarinta badan bulshada marka la dhex degan yahay hase ahaatee ninkani wuxuu waqti dambe u ogaaday ama u bartay inuu galo websiteska aflaanta xun lagu daawado wuxuu ka sheekeynayaa isaga oo afkiisa kaga waramaya in arintaasi ay dhaqankiisa ay wax ka bedeshay ninkani wuxuu bilaabay inuu noqdo qof aan naftiisa aan controlling nin shaydaanka iyo naftiisu ay hogaaminaysa ayuu noqday oo aan wax qaraar ah iyo wax go'aan ah haba yaraatee aan qaadan karin arintaasi waxay ku keentay in waxbarashadiisa maalinta ka hooseysa ay hoos u dhacdo darajadiisa ay hoos u dhacdo waxbarashadii ay ku adkaato heer markii dambe ninkii kaalinta koobaad gali jiray sanad walba oo markii dambe uu noqday qof saaqid ah waxbarashadiina ka tagay adduunyadiisana aan ku fiicnayn aakhiradiisana gacantiisa ku baabiyay walaalayaal asxaabay waxaan ka hadlayaa wan cadasha ay wadato dunuubtu xalqadan arintaas ay ku saabsan tahay